Dagaal culus oo maalmihii la soo dhaafay ka socday gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Sabiib iyo Canoole una dhexeeyay dagaalyahano ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kale saaxiibada taageera ayaa ugu dambeyn waxaa lagu xaqiijiyay in Al-Shabaab laga saaray deegaanka Sabiib iyo Canoole oo ay ku sugnaayeen. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Cali Najax ayaa carabka ku dhuftay in ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dib ula wareegeen deegaanka Sabiib iyo Canoole kadib dagaal xooggan oo maalmo ka socday halkaasi, khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawacna uu ka dhashay. Wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in hadda gacan ku haynta deegaanka Sabiib iyo Canoole ay dowladda federaalk Soomaaliya leedahay, dagaalamayaashii Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnaana laga saaray. Wuxuuna sidoo kale gudoomiyuhu uu sheegay inay diyaar u yihiin inay iska difaacaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo sida uu hadalka u dhigay. Waa kan gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Cali Najax oo faahfaahin buuxda ka bixinaya qaabka dagaalku u dhacay iyo sida ay ula wareegeen. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka ugu horeysa waxaan rabaa halkaan inaan uga hambaliyeeyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo saaxiibada kale ka socda dowladda Uganda runtii maanta gacanta ku dhigay kana sifeeyay deegaanka Sabiib iyo Canoole ee degmada Afgooye kooxda khawaariijta ah oo muddooyinkii hadda ugu dambeeyay ummadda reer Koonfur Galbeed ee gobolka Shabeellaha Hoose nawaaxigaas ku dhibaateynayay. Waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guud ahaan geesiyaasha maamulka iyo shacabka halkaas ku nool oo runtii si wada jir ah isaga dulqaaday khawaariijtan halkan kusoo biirsi aad hesho macluumaadkii iyo wararkii ugu dambeeyay iyo jiritaanka suurad xumeeyay dhaqankii wanaagsanaa ee diinteena Islaamka iyo dalkan Soomaaliyeed oo runtii ah dal ay ku nool yihiin dad muslimiin ah oo sunni ah oo la yaqaano oo adduunka oo dhan laga aqoonsan yahay. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo shacabka ku nool nawaaxigaas si guud ahaan inay garab istaagaan ciidanka, la shaqeeyaan maamulka. Annaga haddaan nahay maamulka gobolka oo hormuudka ah howlgaladan ka socda gobolka guud ahaanna waxaan ballan qaadaynaa in geedaha hoostooda iyo meel walbaba aan u tegi doono, aan la howlgali doono ciidamada qaranka ilaa khawaariijta aan ka sifeyno gobolkan guud ahaan haddii Alla idmo. Sidaas la mid ah waxaan rabaa inaan baaq u diro shacabka ku nool gobolkan Shabeellaha Hoose qaybooda kala duwan, hadday haween yihiin, hadday dhalinyaro yihiin, hadday odayaal yihiin. Ogaada dalkiinii waxaa jooga ka dagaalamaya nolol idin diidan, horumar idin diidan, caafimaad idin diidan, koox khawaariij ah oo weligeedan ay soo jirtay oo keliya taqaana in la iska celiyo mooyaane aan barya walaalnimo, ehelnimo, dhaqan, luqad iyo midib midna aanan fiirinaynin keliya dhaqankooda uu yahay inay runtii inaad iska dhicisid oo aad iska dulqaadid mooyaane aan si kale kaaga tegayn, dhiiggaaga xalaashanaya, diintii suurad xumeynaya, dalkii baabi'inaya. Sidaas darteed waxaan rabaa gobolkan dadka ku nool, haddii aad arday tahay, haddii aad oday tahay, haddii aad haween tahay, haddii aad ganacsado tahay, haddii aad baawurey tahay oo darowalaa tahay, waxaa laydinka rabaa inaan u soo jeesano in kooxdan khawaariijta ah markaan aan iska dulqaadno. Xal kale ma lahan. dalkan horumarkiisa wuxuu ku xiran yahay oo wax walba ay kaga xiran yihiin nimankan inaan iska dulqaadno. Maamulka idinku hogaaminayo meel walbaan idinla tegaynaa, waa idinkaga horeynaa insha Allahu tacaala. idinkan waxaan rabnaa in aad u istaagtaan difaaca dalkiina iyo deegaankiina, ciidamada qarankana aad garab siisaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.